عليكم ورحمة الله. فيديوgan wuxuu ku saabsan yahay Ramadaanka. Videoga hore aan sameeyay dad badan ayaa waxay dhaheen video good ayuu ahaa. So macnaheedu waxa faahfaahin u bixisa cuntooyinka la cuni karayo iyo cuntooyinka aan la cuni kareynin. Horta haddii Ramadaan lagu jiro ama aan lagu jirin, waxa weeyaan cuntooyinka caafimaadka leh markasta waa inaa cuntaa. laakiin Ramadaanka wax yar ayuu ka duwanaanayaa sababtoo ah waqtiga aad sooman tahay ayaa zaid u badan. So marka way adkaanaysaa inaad carbohydrate yar cuntid ama carbohydrate la'aan aad joogtid. So maalintii inta sooman tahay waxaa u baahan tahay wax energy. Marka waxaa ku dhihi lahaa midda kale waxay ku xiran tahay hadafkaaga. haddii hadafkaaga inaad murqa dhisatid rabtid uu yahay, hadafkaaga inaad maxaa la hilib iska ridid uu yahay, hadafkaaga ayay ku xiran tahay. haddii aa inaad murqo dhisatid rabtid, waxaa muhiim ah inaad carbohydrate wanaagsan cuntid sababtoo ah tusaale waxaan iri 16 saacadood ay sooman tahay. tusaale ahaan dadku isku waqti ma qofba waqtigiisu sameeyay, laakiin qofkaas tusaale ay soo qaaday 16 saacadood ayuu sooman. markii soonka aad furtid, haddii aad carbohydrate la'aan aad ku furtid, jirkaagu wuxuu noqonayaa wax la dhaho depleted, wax la dhaho macnaheedu jirkaaga dhan flat ayuu noqonayaa. murqaha markaa flex garaysid ama macnaheedu muraayad isku egto waxaa noqonaysaa qof flat ah. murqih ma muuqanayo, murqaha way kugu yaalaan laakiin jirka waxaa ka maqan maxaa la dhahaa carbohydrate-kana soo wada ognahay jirka ayuu full ayuu ka dhigaa. markaa cuntid jirkaaga full ayuu noqonayaa. So marka waxaa ku dhihi lahaa haddaa qof bir qaada tahay, murqihiisa ilaalsanay tahay, carbohydrate-ka intaa cuni jirtay wax yar ku dar. haddaa 150 cuni jirtay 200 ka dhig. So qofkii birta qaaday ama murqihiisa ilaalsanaya murqi noo dhisay meesha ugu tagno, waxaa u imaanay qofkii hilibka iska ridaya. qofkii hilibka iska ridaya horta bishan waa bishaada, bil ka wanaagsan ku soo marayso, waa chance wanaagsan hilib iska ridi karaysid. So haddii aad awalkii hore haddaa carbohydrate yar cunaysay, meeshii isku daa sababtoo ah chance waa 30 maalin oo macnaheedu hal mar ku soo marayso mar kale ku soo marayn. waa inaad ka faa'iidaysataa marka 30 maalin carbohydrate-ka meeshaadi ku daa, laakiin waxaa sameynaysaa orodka ayaa yareynaysaa sababtoo ah maalinta ayaa sooman tahay. So jirkaaga asaa wuxuu gubayaa hilibka maalintii intaa sooman tahay hilibka ku xareysan ayuu wuxuu isticmaalayaa energy. haddii marka orod ku sii dartid, waxa uu weight kasanayo kiilooyin kasanayo kaaga dhacayaan, mana u baahnid midaas, caafimaad buu ku jiro. haddii ma sheegin qof zaid ilaa 100 dhowr kiilo aad tahay, waa okay hilibka hadduu macnihiisa saas kaaga dhaco maxaa yeelay hilib badan ayaa ku saaran. laakiin qofka 10 kiilo 10 dhowr kiilo extra ay saaran tahay, hadduu bishii maxaa la wiigi 5 kiilo ay ka dhacdo, caafimaadu maaha, mana wanaagsan. So marka waxaa ku dhihi lahaa hadafkaaga ogaaw, maxaa rabtaa inaad samaysid. maxaa kale muhiimad ah cardio-ga aad sameynaysid. qofka macnaheedu hilibka iska ridayo, cardio-ga aad sameynaysid kii macnaheedu normalka inuu ka duwanaado, kii maalmaha aadan soomneen oo soonka lagu jirin uu ka duwanaado. soonkan waxaa biyo ma cabaysid, wax macnaheedu jirkaaga wax uma loo gal. laakiin soonkii maalmahan aad sameynayo intermittent fasting-ka ahaa, biyo ayaa la cabay, kafee ayaa la cabay, wax walba ayaa la cabay. So cardio aad sameyn haddii cardio u baahatid ha ka duwanaado kii hore. maxaa ka wadaa mid ah 10 daqiiqo ayuu ka badan. hataa ha ordinaa ku dhihi lahaa aniga soo soco video hore soo ku sheegay xaafadda dhexdeeda ku dhex soco, intaas riiska extra calorie aad gubeysid muhiim waay. So marka khaladka dadka badan ay sameeyaan waxaa waaye afurka markii la gaaro asoo baahan ayuu qofka imaanaya, wuxuu cunayaa cuntada meesha taali kali ilaa buu cunayaa. maalintii dhan wuxuu soo soomnaa almiitada uu sameynaya hal mar ayuu cuntadeeda cunayaa. midaasoo laba dhib ku keeni karayso. kow inaysan hilib kaa dhicin, labo ama inuu hilib kugu darsamo. midda kale caafimaad ahaan ku wanaagsan midaas markaa samaysid. tusaale hadda markii afurka la gaaro haddaa cunto macnaheedu zaid weyn aa cuntid, salaad ma aadi karaysid koodar horta, taraawiix ma aadi karaysid. haddii aadidna way kugu adkaanaysaa inaa macnaheedu salaad toos u dhamaystid. labo haddii macnaheedu gym inaa aad rabtid ama almiita aad samaysid aad rabtid, maxaa la dhahaa ma almiiteen karaysid, calooshaas zaid u buuxda, ma dhaqaaqi karaysid. waxaa nasiib leedahay haddii aad meesha fris ka kacdid. So anyways video intaas ayuu ku saabsan yahay. insha Allah maanta video badan ayaa duubi doonaa. haddii halkan shaati iyo halkan ookiyaal ay ugu aragtid hadhihin ninka dharka lama qabo miya, maxaa dharkan le ku duubaa videoga. maxaa yeelay maanta challenge weyn ayaa haystaa, firaaqa ayaa ahayd, qorax wanaagsan ayaa jirto, waa inaad ka faa'iidaystaa. videoyadii su-aalihii weekend idin la weydiinayay ayaa ka wada jawaabaya insha Allah. waa ogahay su-aalihiin inay zaid u bateen, laakiin busy ayaa jiray.
so هاي لا يابنا flex boom